soo dhawaada daawadayaal waa barnaamijkeena tusmada caalamka oo aynu qaybtan kaga hadli doono dawladda Soomaaliya oo dhibana u noqotay mashruuca weyn ee The Great Reset iyo halista daran ee ku soo wajahan bulshada Soomaaliyeed. haddaba daawade bal muxuu yahay mashruucan weyn ee The Great Reset? halis intee leeg ayuu gaarsiin karaa dawladda Soomaaliya iyo shacabkeedaba? waxaan idinla socodsiin doonaa aniga oo Mukhtaar Maxamed Diriye Mukhtaar Jambaq. haddaba intaynan u guda gelin warbixinteenan fadlan muuqaalkeena like saar, wixii talo ahna commentiga hoose noogu reeb. haddaad nagu cusub tahayna subscribe saar, gambaleelkana furo. mahadsanid. mashruucan waxaa diyaarisay hay'adda dhaqaalaha adduunka ee World Economic Forum waxaana daraaf gareeyay dhaqaalayahanka magaciisu yahay Klaus Schwab. mashruucan waxaa dabada ka riixaya dawladaha ay ka midka yihiin Israa'iil, Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dawladaha hoostaga. mashruucan ujeedkiisu wuxuu yahay in meesha lagaga saaro dawlado dhowra oo dhaqaalahoodu kor u kacayo, isla markaana dawladahani waa Israa'iil iyo Mareykanka iyo Ingiriiska ay dib gacanta ugu dhigaan hogaaminta dhaqaalaha adduunka. dhaqaalayahanka magaciisu yahay Klaus Schwab mar uu ka hadlayayna waxa uu hadalkiisii ku soo daray in qaaradda Afrika ay muhiim u tahay mashruucan The Great Reset. So we have to prepare for a more angry world, and how to prepare? It means to take the necessary action to create a fairer world, to see that we provide everybody with decent access to the health system, that we make sure that those people who are really left behind, and I'm not speaking only on national levels, I'm speaking also internationally. If I see now the tragedy in some of the emerging countries like South Africa, like some countries in East Asia. daawade marnaba ma isweydiisay waxa uu yahay xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 iyo halka uu ka yimi iyo waliba sababta uu adduunyada ugu sii fidayo iyo waxa dawadiisa ilaa imika loo soo saari laayahay. xanuunkan safmarka ee COVID-19 waa xanuun loo adeegsanayo in lagu hirgeliyo barnaamijka The Great Reset. xanuunkan safmarka ee COVID-19 marka uu adduunyada farabaan ku dhigo isla markaana ay bulshada caalamku dhadhamiso dhibka uu leeyahay xanuunkani, ayaa la doonayaa in adduunyada lagu khasbo in loo sameeyo lacag keliya oo adduunyadoo dhan wada isticmaasho. lacagtaasoo ah lacag elektarooniga, isla markaana ay maamulkooda gacanta ku hayaan dawladaha horkacaya barnaamijka The Great Reset. markaynu ka hadalno waxyeelada uu u geysanayo Soomaaliya, waxaynu qiimaysanaynaa dhaqdhaqaaqyada ka socda guud ahaan geeska Afrika. daawade bal qiimee mashruucan waxaa geeska Afrika ka hirgelinaysa dawladda Itoobiya, taas oo kaashanaysa dhigeeda Kenya, iyadoo ay caddayn inoogu filan tahay mashruucii labada dawladood ay sida wada jirka ugu dhisayeen wadada Doonyaale, taasoo ay ugu magac dareen wadada isdhexgalka iyo isu socodka bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha. dhanka kale markaynu eegno shirarkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ee dhex maray dawladda Somaliland iyo dawladda Soomaaliya ee kulankii u dambeeyay lagu qabtay dalka Djibouti, kaasoo qodobadii ka soo baxay ay ahaayeen qodobo lagu heshiiyey isdhexgalka iyo isu socodka bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Mr. Abiy Ahmed mar ay baarlamaanka dawladdiisu ay arrinkan ka wareysanayeen waxa uu si bareera u sheegay in dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ay si rasmi ah ugu heshiiyeen inay yeeshaan hal dawlad oo calan kaliya wada leh. ሶማሊያ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ጂኦግራፊካል ቦታ ያዘች ሀገር ነው። ነገር ግን ያ ሁሉ ሶማሌን ከቦ ያለው ውሃ በቀን አንድ መርከብ የማይታይበት ሆኖ ይታያል። ያ ውሃ በቀን አንድ መርከብ የማይታይበት፣ ውሃው ደግሞ የማይጠጣ ለእርሻ የሚሆን ቦታ ደግሞ ውሃ የያዘበት ሀገር፣ እኛ ደግሞ ፖርት የለንም እያልን የምንቸገርበት ሀገር መሆኑ ከረጅም ጊዜ አንፃር ጎጂ ሆኗል፣ እየጎዳን ያለው። ያ በተፈጥሮ ያገኘነውን ውሃ እንደ ፖርት ብንጠቀምበት ለብዙ ቀጠናዎች የቀረበ ስለሆነ ብዙ ሀብት እናወጣበታለን። እኛም በመካከላችን በመናገረው ግብይት በራሱ ከፍተኛ የሆነ የሀብት ልውውጥ ማድረግ ይቻላል። ሶማሌን፣ ኬንያን፣ ጅቡቲን፣ ኤርትራን ጨምሮ የአሜሪካን ህዝብ ግማሽ በላይ የሆነ ፖፑሌሽን ነው። በጣም ትልቅ ፖፑሌሽን ነው። ጠቅላላ ምስራቅ አፍሪካ የሚቀናጅ ኢንተግሬት የሚያደርግ ከሆነ የአሜሪካ ማርኬት ማምጣት ይቻላል። እዚህ ትልቅ አገር ሆናለን። በትልቅ አገርነት ልክ እንደራደራለን።
በዛው ልክ እናሸንፋለን፣ በዛው ልክ እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ሁለት ችግር ነው ያለው። በተማረና በማያነብ ሰው እና ባልተማረ ሰው መካከል ልዩነት የለም። ይሄኛው ተምሯል፣ ነገር ግን አያነብም፣ አይጠቀምበትም። taladu waa ta ilaahay haddaynu u soo noqonno sababaha maanta hortaagan ee barnaamijkaasi sida rasmiga ugu hirgeli leeyahay waxaa kow ka ah taageerada buuxa ee dowladda Turkigu siinayso dowladda Soomaaliya kaasoo baajiyay hagardaamooyin badan oo loo geysanayay shacabka Soomaalida iyo dowladaheedaba. dhanka kale waa qadarta alle waxaa dalka Itoobiya ka socda dagaalo sokeeye kuwaasoo Itoobiya u diiday inay ku dhiirato hirgelinta mashruucan. warbixinteeni aynu kaga hadlaynay dhibaatooyinka iyo khatarta ku soo wajahan dowladda Soomaaliya iyo jiritaankeedaba waa naga inta aynu ku kulmayno warbixin tan oo kale ah waxaanu idinkaga tagaynaa amaano Allah.